waxaan mas'uul ka nahay ummadda Soomaaliyeed maqaamkeeda iyo sharafteeda iyo qiimaheeda mas'uul ka nahay markay taa ka soo gudubto waxaan aaminsanahay dadkan hadda aan dooranay inay yihiin dad intaas oo dhanba buuxin kara shuruudahaas that's why u dooranay dadkaas oo aan uga dhignay inay noo soo baxaan oo noo yimaadaan hadii marka ay dadka aaminsan yihiin dad kale oo waxa jira kaga haboona anagu dad saas uga sii haboon maanan arag way jiraan dadku waa binu aadan laakiin wixii waa kuraas xisaabsan walaal kala horeyn ma ogiye kala macaan ma laha wixii markaas ay anaga aan islahaynay waa u doorbidaynayo Soomaaliya oo dhan bay wax ka tari karaan ama wax ka qaban karaan baan dooranay inay Jubbaland kaliya difaacaan uma aan dooran waxaan u dooranay Soomaali weyn oo dhan inay u yihiin hoggaan waqtigii 2 sano ahayd iyo waqtigii 4 sano ahaydba dagaalkeenu uu ku dhamaaday marka dawlad goboleed la dagaalamayso waad garan kartaa dhibaatada haysato qofka bini aadanka marka uu maskaxiyan lagala dagaalamayo oo physical lagala dagaalamayo waad garan kartaa waxa dhibaato ama difeeta ah soo gaarayo marka anagu waqtigii aan wax marin lahayn iyo waqtigii aan budget ba ma aanan nala siinaynin una qabateen baan ku jirnay maxaan wax marin karnaa ama deyn karnaa isku tashiban intaan ku soo gaarnay ina anaga isku tashano wixii noo soo baxo iyo wixii aan helno aan ku socodsiino baa intaan ku soo gaarnay taana waxaan aaminsanahay inay tahay يعني wax ka tagay inay tahay xubnihiina loo keenay ee la kala saaray tartamayay kuwii ugu wanaagsanaa ee ku haboonaa ayadoo daahfurnaan iyo cadaalad iyo wax walba meesha ay jirtay si sax ah xor iyo xalaal ah jujub iyo aan jirin cagajugleen ayu nin walba maxal dhihi jiray miiska loogu kala baxay baarlamaankana 8 saac haweenimo 7 saac qof walba xilliga loo baahda la hadlayo oo codkiisi taas ayaa sabab u ah qof walba in ماشي wax wanaagsan ka soo baxaan tanaasul la dhiyo wax loo maaragtay la dhaho qoor qabasho qoolaybiye kuma cabtaa la yiri dadkan waxa la yiri nin walba 20 jir looma taliyaan waa nin walba asaga rabitaankiisa isku soo sharaxay markuu arkay ruuxa walaalkiisa wax qabadka ama wuxuu wadanka u soo qabtay labada nin ee tanaasushay waxay duruufta waxay fiiriyeen labada nin ee u tanaasuleen inay Jubbaland saameyn ku leeyihiin inay wax soo qabteen wadankana wax qabad baa lagu joogaa hadii ruuxu waxba qabanin cidna ma rabto ruuxii wax qabtay ruuxa kale la soo tartamay bulshadii laga doortay ayay nin walba fadhigiisa ku qanciyaan gabadh miya habar miya oday miya ilmihi iskooleyda miya maamul goboleedkii laga doortay 51 baan dooranay 51dii 10 ka soo noqotay ee Jubbaland duruufaheeda ama waxay u baahan tahay baahi tirtay inay yihiin baan qabaa